wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garow warbixinada channelkeena YouTube warbixin news amniga magaalada muqdisho oo la adkeeyay ciidamada ammaanka oo heegan la geliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shir degdeg ah la qaadanaya hoggaanka ciidanka kuwaas wax laga weydiinayo amniga caasimadda xilli laga baqdan qabeen kooxda al-shabaab weerar qaraxyo ah iyo dagaal toos ay ka geystaan magaalada caasimadda muqdisho ayagoo raba inay ku nafisaan culayska ka haysta gobolada hadda kacdoonku ka socday kooxda ka dhanka ah haddaba cabsida ka taagan muqdisho meelaha laga cabsi qabeen kooxda ay weeraraan iyo weliba sidoo kale heeganka la geliyay ciidamada ammaanka iyo shirka ra'iisul wasaaruhu la qaadanayo hoggaanka taliyaasha ciidamada ayaa si guud warbixin kaga haya waxaa kaloo qaybka ciidamo ayaa xirtay waqooyiga magaalada gaalkacyo xiisad ayaa ka taagan waqooyiga gaalkacyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda puntland oo qasan iyo ciidamadan xirtay wadooyinka puntland ee waqooyiga gaalkacyo waxay ka dhigan tahay jarmal biixi oo shaaciyay dhacdo argagax leh oo kooxda al-shabaab ay ka sameeyeen gobolka hiiraan tani markuu bilowday gacdoonkaasi iyo waxaa kaloo qaybka dowladda soomaaliya oo jawaab degdega ka bixisay hadalkii ka soo yara cala dheere ee hanjabaada ahaa ee la xiriira inay beegsan doonaan beelaha hubka qaatay ee ka dhanka kooxda al-shabaab waxaa kaloo qaybka Saciid Cabdilaahi Dani oo tallaabo la yaab leh qaaday asagoo channel abshirna raba inuu u wareejiyo magaalada London haddaba tallaabooyinka uu qaadayo Saciid Dani xaaladda Puntland oo ka sii daraysa iyo khilaafka ka dhex jira hoggaanka kooxda Aragjan iyo weliba Saciid Cabdilaahi Dani oo xoogeysanaya warbixin ayaan kaga haya saaxiibayaal midowga Yurubna waxay qaadeen tallaabo ka dhana wadamo badan oo Soomaaliya hubiyay dhaqaalaha loo arooriyay dhammaan qodobadani kuma kale ayaan ku faahfaahin doonaa qayb ka noqon dawladashana ku xidhan channelkeena YouTube warbixin news calaamada guduzani ku muuqata subscribe inoo gambarka taabo si kugu soo dhacaan saaxiibayaal sida wada qodobadani kuma kale ayaan ku faahfaahin doonaa 10 daqiiqo ee nagu saacidan hadduu ilaa raali ka noqdo sida wada mar kale aan ku bilaabo xaaladda magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa heegan buuxa la geliyay iyadoo laga cabsi qabeen kooxda al-shabaab ee weerar ay ka geystaan caasimadda Soomaaliya muqdisho ilaa dhanka sirdoonka ayaa channelka warbixin ku sheegeen kooxda al-shabaab ay toddobaadkan ay qorsheynayaan weerar ay ka geystaan hoteelo iyo weliba sidoo kale xarumo wasaaradeed oo ku yaala gudaha caasimadda Soomaaliya muqdisho ayagoo raba inay kaga jawaabaan culayska iyo duulaanka kacdoonka ee kooxda ka haysta gobolada Hiiraan iyo Galgaduud maadaama beelihii hubka ay qaateen oo ay la dagaalamayaan kooxdan afayeenka al-shabaab ayaa muuqaal soconaya 39 daqiiqo oo soo duubay wuxuu ku guudiyay inay bartilmaameysan doonaan goobo badan oo muqdisho isagoo dadka shacabka ugu baaqay inay ka fogaadaan goob walba oo kooxdu ay bartilmaameysanayso tan ayaa keentay cabsida ah in kooxdu hadda weerar qaraxyo iyo dagaal bay ka geysan karaan magaalada muqdisho ila dhanka ammaanka ayaa channelkeena sirta wararka u xaqiijiyay in meelaha suurtagalka ah ee kooxdu ay rabaan in weerar ka geystaan waxaa qaybka madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan baraha ammaanka laga xaqiijiyay madaxtooyada inkastoo in madaxtooyada la weeraro oo la gala ay waqtigan ay tahay mid aad u adag marka la eego ilaalada ammaanka iyo weliba meelaha laga ilaaliyo madaxtooyada oo aad u kala fog markaad ka timaado wadada Makal Mukarrama gaar ahaan dhanka shaqaalaha iyo dabka ammaanka madaxtooyada waxaa laga ilaaliyaa sayidka halkaasoo jagboonti adag yeelaan oo gaadiidka lagu celiyo ilamaan gaadiidka wata aqoonsiga madaxtooyada keliya in la soo daayo maahin waa meel aad u adag in al-shabaab ay ka soo gudbaan oo madaxtooyada u gudbaan ayna ka dagaalamaan laba dhanka ay marka ka timaado isgoyska Jubba waxa ay tahay in wadada ammaanka madaxtooyada waxaa laga ilaaliyaa halka loo yaqaano midka jilco ilaa xindaabka degmada Boondere gobolka Banaadir ayaa ammaanka madaxtooyada laga ilaaliyaa halkaas waxa yaala jagboontiyo waxaana ciidamadu ay ogolyihiin kaliya inay soo gudbaan gaadiidka wata aqoonsiyada madaxtooyada dhinaca kale markaad ka timaado xamar weyne xamar jajab ilaa waabari waxaa soo maraysa isgoyska Boortooriyada Ceelgaabta halkaas waxa yaala jagboontiyo ilaa 3 jagboonti ah oo aad u adag in al-shabaab ay ka soo gudbaan waana sababtaan ku leeyahay aad iyo adag in hadda la galo madaxtooyada oo laga dagaalamo jagboontiyaasi gaadiidka soo dhaafa waxay ku soo dhaafaan oo kaliya aqoonsiyo markaas ay geeyaan ciidanka oo ay tusaan kadibna gaariga la aqoonsado la baaro lana soo daayo waana 3 meel ee madaxtooyada laga ilaaliyo tan oo keeni karta in ammaanka madaxtooyada yahay mid aan sahlan oo aad u adag in al-shabaab sanadkan ay ka dhex dagaalamaan gudaha madaxtooyada
sidoo kale waxa aad u adag hotelka SYL oo kasoo horjeeda madaxtooyada in kooxdu ay gasho ay ka dagaalanto marka la eego xindaabka hotelku ku yaalo iyo ammaankiisu aad u sareeyo laakiin meelaha laga baqi karo kooxda inay ka weerartaan waxaa qayb ka hotelada ku yaala xeebta liido xarumaha wasaaradaha qaarkood ee dowladdu oo meel ka baxsan madaxtooyada ku yaala kuwaas ina suurtagal ah in kooxda ay fudaato al-shabaab waxay isticmaali karaan falsafad walba waxay weerari karaan hoteelo xarumo wasaaradeed ayuu yiri xubin kamid ah dadka xogta nala waraageen dhinaca kale amar ayaa la siiyey saraakiisha ciidanka booliiska iyo nabad sugidda xoogan ayaa la geliyay ciidamada ammaanka oo feejignaan dheeraada inay sameeyaan oo ay ka hortagaan weerarada dhici kara ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa la sheegay in labada fiidnimo caawa uu kulan degdeg ah la ballansan yahay taliyaasha ciidanka ayadoo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidankana la sheegay inay ka wada areysan doonaan arrimaha dhanka ammaanka ah iyo weliba in feejignaan dheeraada la sameeyo waxa uu yidhi xubin ka mid xafiiska ra-iisul wasaaraha xogta nala wadaagay waa sax waxay shabaab qorsheynayaan weeraro waana wax dhici kara inay iskaga yareeyaan culayska ka haysta gobolada soomaaliya uu yidhi saa darteedna dowladdu way fahamsan tahay falsafad walba ay kooxda isticmaali karaan ayuu ku celiyey sarkaalkan xogta nala wadaagay ilawareedada ayaa sheegaya in caawa loogu ballamay shir degdeg ah una dhexeeya ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo taliyaasha ciidanka shirkaasoo diiradda lagu saari doono xasiloonida amniga go-aanana ay soo bixi karaan hadda ciidamada amar ayaa la siiyey hoygan ayay ku jiraan fejignaan dhanka ammaanka ayaa ka jirta magaalada muqdisho iyadoo laga cabsi qabay in kooxdu ay weerar ay ka geystaan shirkaas iyo weliba wixii kale kusoo korra wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa dhinaca kale saaxiib yaal waxaan eegaynaa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday hiiraan janaal biixi ayaa shaaciyay dhacdo argagax leh oo kooxda al-shabaab ay ka sameeyeen gobolka hiiraan tan iyo intuu socday kacdoonka taliyaha ciidanka dhulka ee soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa xog cusub ka bixiyay dagaalkii ugu dambeeyey al-shabaab looga saaray deegaano badan oo kooxda ay maamulayeen taliya biixi ayaa shaaca ka qaaday in kooxda al-shabaab ay sameeyeen waxa la yaab noqotay markii ay madaxa ay ka wada gooyeen xubno ka tirsan kooxdooda ama madaxa ay ka wada jireen xubno ka mid ah kooxda al-shabaab oo lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka aboorey oo gobolka hiiraan hoostaga taliyaha waraysi bixinaya waxa uu sheegay in deegaankaasi markii ay laga saaray kooxda laga dilay ilaa horjoogayaal ama saraakiil sarsare oo kooxda al-shabaab si aan loo aqoonsan ayuu taliyuhu sheegay in kooxda ay madaxa ka wada jireen taliyaashii saraakiisha laga dilay maadaama aysan qaadi karin meydadkooda oo aada u badnaa taliyaha waraysi siinaya idaacadda radio muqdisho ayaa sheegay in ugu yaraan 3 nin oo kooxda madaxdooda ahaa ama horjoogayaal sarsare ama taliyaal u ahaa ay qaadi waayeen meydadkooda taasoo uu ku micneeyey in kooxdooda ay diidan tahay in la aqoonsado wujiyadooda ama la ogaado si xogtooda loo helin ayay madaxa ka wada jireen oo ay wada qaleen ayagoo qalan oo gooracan ayayna tuulida kaga dhex tageen ayuu yidhi taliyaha aboore waxaa ka dhacay dagaal qisa cajiiba leh oo al-shabaab dad badan loogu dilay midad badan al-shabaab halkaasi kaga carreen ayuu raaciyay taliyaha biixi wuxuu intaasi ku daray waxa ay ku galaan xubnahaasi ee shabaabku waxay diiday in la aqoonsado dadka ayuu ka geeriyooda si aan loo soo bandhigin waxay kaloo ay sameyn arrin mucjisa oo ah in qof walba oo ayaga ka dhinta hore laga dilayo ama xitaa carro lagu aasayo qofkii xitaa aan hab maamuusa loo aasinin dhinaca kale taliyaha ayaa sheegay in dagaal culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan lagu magacaabo yosomo ayaa lagu laayay kooxda al-shabaab waxaanuu sheegay dagaalkaasi lagu dilay 45 xubnood oo kooxdaasi ka mid ah ugu dambeyntii biixi waraysigan uu bixiyey waxa kale uu ku sheegay in dagaal lagu qaadi doono shabaabka oo aan la dhaafi jirin meel walbana ay dowladdu ay kula dagaalami doonto dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay hadalkii hanjabaada ah ay ka soo yaray hogaamiyaha kooxda al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi ka jawaabaya hadalkii afhayeenka kooxda al-shabaab cali dheere kaas oo xalay markii ugu horeysay muuqaal uu soo duubay dagaal ku cilaamiyey dagaalkaasi ka dhanaa shacabka kacdoonka sameynaya weliba dowladda soomaaliya jenaraal biixi waraysigani bixinayay waxa uu sheegay in waxba aysan u arka hadalka caladheere ayna u arkaan keliya koox si dabargo-aysa oo ah hadal dhiirigelin ah oo keliya laakiin awoodii al-shabaab hadda way idlaatay yiri taliyaha ayaa sheegay in dhibaatada haysta al-shabaab ay hormuud ka yihiin shacabka soomaaliyeed oo muddo dheer iska dulqaadanaya laakiin hadda shacabka ayaa kacay kacdoon ayay sameynayaan hubka ayay qaateen al-shabaabna way ku adag tahay inay sii joogaan ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya
afayeenka guud ee kooxda al-shabaab cali maxamuud raage ayaa markii ugu horreysay soo duubay muuqaal 30 daqiiqo soconaya isagoo ku ilaamiyey dagaal ka dhan dadka shacabka ah ee hubka qaatay ee kasoo horjeeda ayaga. cali dheer ayaa qiray in dowladda soomaaliya ay qabiilku ay hubaysay ama qabaa'ilada ay hubaysay tan al-shabaab dhibaato ku noqotay maadaama meelaha qaarkood ay adag tahay inay iskaga kala gudbaan maadaama qabaa'ilkii la hubeeyey hubkiina gacanta ugu jiro. markan waxaan eegaynaa xaaladda gaalkacyo. ciidamo ayaa xirtay wadooyinka magaalada gaalkacyo. wararka ugu dambeeya xiisada ayaa ka taagan waqooyiga magaaladaasi. waxaa maalinta saddexaad xiran wadooyinka soo gala magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug halkaasoo dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabeen ciidamo caraysan oo habbeelad u abaabulan. ciidamadan ayaa hakiyey dhammaanba dhaqdhaqaaqyada wadooyinka taasoo saameyn weyn ku yeelatay safarada gaadiidka gudaha magaalada gaalkacyo. mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay janaalkii nasirta wararka ayaa ka warbixiyey xaaladda guud. wuxuuna sheegay in wadooyinka ay yihiin kuwo xiran laamigan waxaa taagan ciidamo gaar ahaan wadada isku xirta gaalkacyo iyo muqdisho oo dhankay soo aada wadada hoobyo. uu sheegay inay dhowr isbaaro ciidamadu dhigteen wadada laamiga ee muqdisho soo aada halkaas bay ka xiran tahay. wadada kale dhanka hoobyo aado 8 kilomitir u jirta garoonka diyaaradaha ciidamadu waa xirteen. wuxuu sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay arrintan inay soo taagmeeday maalmihii ugu dambeeyey oo waxba laga qaban lahayaa xaaladda. wuxuuna sidoo kale uu sheegay maamuladu ay iska dhitirayaan. waxaa kaloo intaas uu raacay in xiisada ay salka ku hayso cabasho ku aadan habqaybsiga beeraha ee maamulka ka jira magaaladaasi gaalkacyo maadaama dhowaan madaxweynaha maamulkaas maamul cusub u soo magacaabay gobolka. dhinaca kale maamulka gobolka mudug ee puntland oo arrintan shir gaara ka yeeshay ayaa sheegay in wax ka qaban doonaan. gudoomiyaha cusub ee gobolkaasi faysal sheekh cali oo dhowaan loo magacaabay ayaa sheegay in arrintan ay soo farageli doonaan. si kastaba xiisad ayaa ka taagan magaalada gaalkacyo oo salka ku haysa awood qaybsiga beelaha oo diidan. dhinaca kale saciid cabdilaahi dan ayaa xaalada hawareera wajahaya isagoo qaaday tallaabo kale oo xaalada kusii adkeyn karta isagoo janaan abshirna raba in lana loo wareejiyo. madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dan ayaa shalay booqday taliska kontay afraad ciidanka difaaca ee puntland halkaasoo kulan kula yeeshay taliska ciidanka difaaca. kulanka waxaa madaxweynaha ku welinaya guddiga la taliyihiisa ee u qaabilsan arrimaha difaaca dhismaha ciidanka kuwaasoo dhowaan uu magacaabay. xogaa la helaya kulanka ayaa sheegay dhammaanba holaha ciidamada iyo maamulka miisaaniyadooda laga wareejiyey taliyaha cusub ee ciidanka daraawiishta jenaraal abshir london ninka la yidhaahdo waxaana loo wareejiyey xubin kale. waxaana xusid mudan markii hore howlgallada ciidamada tirikoobkooda ay gacanta ku hayeen iyo guddiga dib u habeynta ciidamada ay gacanta ku hayeen laakiin hadda oo uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda xasan shire abdi. laakiin hadda waxaa la sheegay waxaasoo dhan isbedel uu ku sameeyey maadaama xaaladda siyaasadeed ee puntland ay aada u qasan tahay. sidoo kale kulanka waxaa go-aano lagu galay in hadda wixii ka dambeeya dhismaha ciidanka ay ka shaqayn doonaan taliyaha cusub ee ciidanka daraawiishta iyo la taliyaasha madaxweynaha dhanka difaaca. taliyaha madaxweynaha ee arrimaha difaaca dhismaha ciidanka waxa ay kala yihiin ilaa 4 qof. waxaana ugu horeeya sarayagaas maxamed cali xisi morgan, sarayagaas yaasiin cumar dheere, sarayagaas cabdirashiid cabdilaahi maxamed iyo sarayaguuti saciid cabdi faarax oo dhammaantoodba uu magacaabay saciid cabdilaahi dani. walaak saaxiib yaalaha warbixinadan ayaan kusoo koobaynaa wararkeena qodobadan ayaa ugu waaweyn. qodobadan wixii soo kordha wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa. nabadgelyo.